horey ayaa waxaa loo yiri cidlo ma dareemo qof uu alle la jirkiisa yahay. alle wuu og yahay in aad murugaysan tahay oo aad waxaad samaysay garan la'dahay, walwal iyo walbahaar aad dareemaysid. alle wuu og yahay in adduunka oo dhan ciriiri kugu noqday oo aad dareemaysid culays sida adduunka oo dhan in dushaada la saaray. alle wuu og yahay in lagu dulmiyey oo lagugu xadgudbay qalbiguna ku xanuunayo. alle wuu og yahay in lagugu leeyahay deyn maalin walba aad ka fakarayso deyntaas sida aad iskaga dhiibi lahayd. alle wuu og yahay in aad xanuunsan tahay mar walba kugu sii siyaadayo xanuunku. alle wuu og yahay in aad weyday hooyada, carruurtaadii, xaaskaagii, gurigaagii, shaqadaadii iyo waxbarashadaadii. alle wuu og yahay in aadan weli guursan oo aad dareemaysid duruuf dhanka guurka ah, ama aad tahay qof aanan weli carruur dhalin. alle dhammaan wuu og yahay. alle ma doonayo in aad murugootid, laakiin waxa uu ku murjiyey ayaa ah si aad asaga gacmaha ugu taagato. alle wuxuu rabaa in uu maqlo codkaaga si uu dhibaatooyinkaaga oo dhan ugu beddelo farxad, xanuunadaada oo dhanna caafimaad, ilintaadana dhoolla caddayn, riyooyinkaagana kaaga dhigo kuwa rumooba. dhibaatadaadu si walba ay u weyn tahay waxaad haysataa alla weyne oo kaa saaraya dhibaatadaada. culays walba waxaa ka dambeeya fudayd. waa ballanqaadkii alle in culays walba uu ka dambeeya fudayd. hadday maanta kaa xun tahay biri ayay ku wanaagsanaanaysaa. maanta haddaad faqiir tahay biri waxaad noqonaysaa taajir. maanta haddaad gaajoonayso biri waxaad dhargaysaa. maanta haddaad xanuunsan tahay biri waad caafimaadaysaa. maanta haddaad dhibaatoonayso ilaahay ayaa biri kaa fudaydinaya. adigu ha noqon midka quustaa. way imaan doontaa ballanqaadkii allah, keliya waqti yar bay u baahan tahay, dhammaan riyooyinkaagu way rumoobayaan. shayna ma soo daaho. ilaahay baa shay kasta u dooraya waqtiga uu ku habboon yahay. ha quusan adigu. waxaa laga yaabaa inuu alle shay qurux badan kaa dimariyo si uu kuu siiyo wax ka sii qurux badan. maxaad u murugoonaysaa iyadoo iskudaygaaga iyo farxaddaada ay ka qurux badan tahay murugadaada iyo guuldarradaada? maxaad u murugoonaysaa iyadoo waxa soo socda ay ka qurux badan tahay wixii tegey? maxaad u murugoonaysaa asagoo rabbigaaga kaaga naxariis badan yahay hooyadaadii ku dhashay? maxaad u murugoonaysaa iyadoo culays walba uu ka dambeeyo fudayd? maxaad u murugoonaysaa xanuunka waa laga caafimaadayaa, dhibaatadu way dhammaanaysaa, dunuubta waa la dhaafayaa, deynta waa la bixinayaa, qofka maqanna wuu imaanayaa, qaladkana waa la saxayaa. maxaad u murugoonaysaa iyadoo risaqaagu uu qoran yahay noloshaaduna ay kooban tahay? maxaad u murugoonaysaa rabbigaagu hadduu doono shay wuxuu dhahaa noqo, wuxuuna noqdaa shaygaas? maxaad u murugoonaysaa waxaad leedahay 2 indhood oo aad wax ku aragtid, 2 dhagood oo aad wax ku maqashid, 2 lugood oo aad ku socotid, 2 gamcood oo aad wax ku qabsatid, meel aad seexatid, maskaxaad ku fakartid, qalbi aad wax ku dareentid. haddii aad tirisaan nimcada uu alla na siiyey lama soo koobi karo.